بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتها بوندا وديال كسر دوادا ورويح أن الدافع عالم كان ذيكايني قضبضة عدكم مغلي دوتان وحا كاميدا حيصد أودا حيصا مرايكن كي إيران أيام مركالي سيحو جيستي وركن وحا شيغي يعني إن لبدا دينا عايس داستدين ويرارا عصوبو إيران أيا دين عيدا شيكتي إني كجوابيسو weerarada la beegsaday saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin Iran dhanka kalena suuqyada tamarta caalamka ayaa walaac ka muujiya xaaladda iyadoo qiimaha shidaalku kor u kacay dunida wararka kale aad maqli doontaan waxa kamid ah hogaamiyaasha dalalka xubnaha kaanato oo shir muhiim ah ku leh magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxyaabaha diiradda la saarayana waxa kamid ah amniga Yurub iyo caqabadaha dunida ee waqtigan jira qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan soo dhawaada aynu ku bilownay xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa maanta gashay marxalad cusub kadib markii ciidamada Mareykanku ay weerar ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaala gudaha wadanka Iran saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadani ay jawaab u tahay weeraro lagu qaaday maraakiib ganacsi oo marayay marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz kuwaas oo ay Washington ku eedeysay Iran dhanka kalena wararka ka imanaya gobolka Khaliijka ayaa sheegaya in qayladaan dhinaca cirka laga maqlay dalalka Bahrain iyo Kuwait dib markii Iran lagu eedeeyay inay gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ay ku beegsatay saldhigyada ciidamada Mareykanku ku leeyihiin labadaasi wadan labada dhinac ayaa midka kale ku eedeynaya inuu jabiyay heshiiskii xabad joojinta ee hore loogu heshiiyay taasoo sare u qaaday walaaca laga qabo inuu dagaalku uu dib ugu fido gobolka bariga dhexe khubarada siyaasadda ayaa sheegay in haddii colaadan ay sii socoto ay saameyn weyn ku yeelan karto isu socodka maraakiibta caalamka ee marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz oo ah mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee shidaalka dunidu maro suuqyada tamarta ayaa durtaba muujiyay walaaca iyagoo qiimaha shidaalkuna uu bilaabay inuu kor u kaco maadaama maalgashadayaashu ay ka cabsi qabaan hakad ku yimaada dhoofinta shidaalka ilaa hadda ma jiraan calaamado muujinaya in labada dhinac ay dib ugu laabanayaan wadahadallo degdega waxaana beesha caalamku ay ku baaqaysaa in la yareeyo xiisadda lagana hortago dagaal ballaaran oo gobolka ka qarxa dhanka kalena magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxa maanta ka socda shir madaxeedka NATO kaas oo ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka isbahaysigani ajendaha ugu weyn ee shirkani waxa hogaaminaya xaaladda amniga Yurub dagaalka Ukraine kor u qaadista kharashaadka difaaca iyo xiisadda sii xoogaysanaysa ee bariga dhexe xogayaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa sheegay in isbahaysigu doonayo inuu sii xoojiyo wadajirka dalalka Yurub xilli dunidu wajahayso caqabado amni oo isa soo taraya wararka ka soo baxaya shirka ayaa sidoo kale tilmaamaya in hogaamiyaasha Yurub ay dadaal ugu jiraan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga Mareykanka iyo NATO iyagoo ay jiraan khilaafaadyo la xiriira xaaladda Iran iyo arrimo kale oo amniga caalamka khuseeya intii uu shirku socday ayaa madaxdu waxa ay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa awoodda difaaca dalalka xubnaha ka NATO loona adkeyn lahaa isbahaysiga dhinacyada sirdoonka amniga badaha iyo difaaca hawada falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in go'aamadan ka soo baxa shirkani ay saameyn weyn ku yeelan doonaan jihada siyaasadeed ee amniga Yurub iyo bariga dhexe bilaha soo socda